ديرتي لا. بسم الله الرحمن الرحيم. بقوري waxaan rabaa inaan ka salaamo shacabka Puntland guud ahaan shacabka Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan shacabka Puntland bahda media kasta oo ay u suura gasho inay dhageysato ama fiirsato programka. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. Shirkan jaraa'id يعني سوقي يا ريمان تو كوسا سنة هاي ورقات كسر بحري حفيز مدحونا كحليانك وعوان كذا وشديد دي هاي شركة فريسين شركة فريسين ساسو حكوس عطاء خود طليها إذا كبوليسك يولد بنتلان وجيسين ضمان إذا ماذا بوليس كمركز ستيشوغان وجيسين وزارة المالية دولة بنتلان وجيسين وزارة الأمنية DDR دولة خاصة بنتلان وشدوا شركة فريسين waxaa dhammaan mas'uuliyiinta warqadan tooska iyo ogeysiinta ku tahay lagu wargelinayaa in shaqadii laga fariisiyay ilaa amar dambe taliyaha ciidanka booliiska dowladda Puntland Cabdulqaadir Shira Faarax Erig maanta taariikhdu tahay August 2017 waxaa ku saxiixan fulin wacan Cabdixakiin Cabdulaahi Cumar Camil madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland. waxaan rabaa marka inaan ka bixiyo faalo yar sababta ay ku timid iyo aasaaskeedii meeshu ka bilowday. shalay subaxii 8 subaxnimo anoo xafiiskayga fadhiya waxay soo wacay madaxweyne ku-xigeenka wuxuu weydiiyey inaan ka warqabo case 12 arday oo laga sii daayay saldhigga dhexe ee Garowe. waxaan ugu jawaabay madaxweyne ku-xigeenka haa madaxweyne waa la socdaa taliyaha qaybta sii daayay waana ii sheegay wuxuuna ku sii daayay si sharciga waafaqsan. wuxuu weydiiyey wuxuu amray inaan shaqada ka joojiyo taliyaha qaybta ilaa amar dambe inta laga baaray kiiska. waxaan ka codsaday madaxweyne ku-xigeenka amar qoraala inuu keeno si aan shaqada uga joojiyo. kadibna wuxuu yiri waxaan bixinayaa amar afka ah oral order shaqada ka jooji kuma joojin karo oral muwaadin mas'uuliyad haya oo shaqadiisa gudanaya haddana ugu maqan shaqo gobolka dhexdiisa magaalada Buurtilo ku maqan oo shaqada aan uga diray shaqada inaan ka joojiyo abaalgud buu xaq u leeyahay xaq uma leh in shaqada lagaga joojiyo oral haddii si adigu madaxweyne aad ka joojinayso warqad qoraal ah amar isi كان أديك كاجا تشوفي لي بس صار يعني وهاجك بين بدح وعقمات سيا دفتر الغدا بصوت صاري أنا هذا دينا خدمة ما هو هنا شعب كبنتلان وحقيقي حقيقة لا تذكر السيد جاي وحي هاي هل كان وحكوا هيا وغير صغر تريها صديق ده ضم محمود موصبي warqadaas xafiiskay ku socotay aan ugu socotay ii soo diray wuxuu leeyahay taariikhdu markay ahayd 22kii waxaa sareeyay guuto Muxiidiin Axmed Muuse saldhigga ku soo xiray wiilal tiradoodu dhan tahay 13 kuwaas oo ku eedeeyay in ay yihiin robbery ama quracad dadka dhaca hase yeeshee kuma keenin wax muujinaya in ay dembiyadaas galeen. qalabkii dambiga lagu galay iyo qalabkii ay boobeen midna laguma keenin. taariikhdu markay ahayd 24kii waxaa kormeer noogu yimid gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad oo ay la socdeen garsoore iyo kaaliyaha maxkamadda saldhiggii bay yimaadeen si ay u kormeeraan oobiga iyo saldhigga waxa yaalla. waxay yidhaahdeen maxay ku xiran yihiin 10 wiil keena wixii lagu qabtay. waxaan u sheegnay in uu noo keenay Muxiidiin oo yiri wixii aan ku qabtay ee ay wateen
ayaan idiin keenaya noomana keenin haddaba waxaa wacay maxkamadda waxay wacaysaa Muxuudiin oo ku tiri maxkamadda keen wiilasha iyo wixii aad ku qabatay taariikhdu markay ahayd 26 waxaa kormeer noogu yimid taliyaha qaybta booliiska gobolka Nugaal wuxuu arkay maxaabiis xiran wuxuu yiri wiilashaan ma u haystaan galdacwadeed iyo dembi muujin waxaan ku niri uma hayno waxaana wiilasha ka mid ahaa 2 wiil oo TB qabta oo daawo ka qaadanayay magaalada iyo kuwa arday ah oo iskuulkooda dhaafay kuwaas oo ka haray dadkii timaha laga jaray ee ganaaxa lagu qaadayay ee kantaroolka laga sii daayay dadka loo haysta taliyaha qaybta gobolka Nugaal waa dhalinyarada noocaasa halkaa waxaa ka cad taliyaha saldhigoo caddaynaya dad la ganaaxay inay jiraan maxkamadina ma ganaaxin cidda ganaaxday waa la isweydiinaya waa in la dabagala la ogaado cidda ganaaxday oo lacagta ka qaaday oo timaha ka xirtay waddanka dawlad baa ka dhisan sharci iyo nidaam iyo kala dambeyn buu leeyahay constitution buu leeyahay lagu kala dambeeyo oo lagu hogaamiyo maamulka dawliga shuruuc baa jirta ciidanka booliisku ku shaqeeyo koodija binaale ama xeerka ciqaabta iyo xeerka habka ciqaabta wixii aan waafaqsanayn procedure-ka ama waxa la yiraahdo procedure binaale ama penal procedure code wixii aan waafaqsanayn oo lagu soo xiro saldhigga waxay muujinaysaa inaanay jirin shuruucda waddanka u degsan inaan loo hoggaansamin procedure penal code wuxuu amrayaa 48 saac wixii ka badan in garsooro la horgeeyo oo la weydiisto xalaaleyn haddii keeskaas ay u dhiman tahay baaris ama eedaysanayaashii ama markhaantigii qayb ka maqan tahay ardayda la soo xiray 21 fal kasta ha ku jireen fal qofku dambi waa geli karaa daa kasta ha noqday laakiin wuxuu u baahan yahay in sharciga la waafajiyo 21 baa la soo xiray 26 baa la sii daayay 6 maalmood bay xirnaayeen garsoorana lama horgeeyo wax evidence ama caddayn oo muujinaya in lagu hay inay wax boobeen iyo qalabkay ku boobeen iyo ciddii baraha ahayd ee dacweynaysay midna lama keenin saldhigga oobigaa lagu qoray gal dacwada looma samayn statement lagama qorin seleksiyoona lagama dirin ma aha ayaga oo keliya dhammaan saldhigyada waxaa ka buuxa oo ay ku soo booqdeen hay-adda xuquuqda aadamiga waxay soo booqdeen isteeshimada booliiska magaalada Garowe dhammaan waxaa ka buuxa dad qaarkood xiran yihiin 3 bilood iyo 4 bilood oo aan la horgeyn maxkamad halkaa waxaa ka muuqanaysa inaan la daryeelayn xuquuqda shacabka dadku dambi waa geli karaa laakiin waxay leeyihiin hab loo saxo qofka marka la xirayo ama la xukumayo waa saxitaan ma ahayn la dilayo waa la saxaa dadka jeel baa la geeyaa jeelka waa lagu saxaa jeelkay ku jiraan dhowr sannadood waan tegay maalin dhaweyd number aad u fara badan ayaan ku arkay oo aan xukunayn oo aan galdacwadeed lahayn oo jeelka isaga jira waxaan tegay saldhigga galbeed waxaa la yidhi Muxuudiin bay xiran yihiin waxaan tegay saldhigga dhexe waxaa la yidhi Muxuudiin bay xiran yihiin madaxweynaha ku-xigeenkaan weydiiyey gurigiisaan ugu tegay maalinta jimcaha waxaan weydiiyey dadka noocaas inay xiran yihiin xuquuqna ay leeyihiin xaq u leeyihiin in sharciga la horgeeyo hadday dambi galeen wuxuu iigu jawaabay waxa jawaabaan qancin waan ogahay buu yidhi dadku inay xuquuq leeyihiin laakiin cabdiweli baa mas-uulka sidaas iigu jawaabay waxaan leeyahay marka cid kasta oo mas-uuliyad haysa mas-uuliyadda ama maalin hay ama bil hay ama sannad hay xuquuqda dadka shacabkaahi waa lagama maarmaan waa in la ilaaliyo haddaan la ilaalin dee dadku marka dambe kolley un ahaan mayaan dad si xaraysan qaar baa ku curyaamay hadda laygu yidhi saldhigga dhexaan ku arka kici waayo laygu yidhi lugooda ku soconaya marka saldhigga imanaya maantana aan dhaqaaqi kara taliya maxamed saciid baa la yidhaahdaa warbaahinta isbiisaan ka socdaa taliyaha booliiska Puntland baa tahay meelaha ugu badan ee aad haatan tilmaantay horeyna aan u ogeyn in dadka lagu xiro qaybtood bilo badan ku xirnaadaan qaar lagu ganaaxo waxa ka mid ah saldhigyada
waxaana xukuma taliyaasha qaybaha ee adiga aad xukuntid iyo taliyaal saldhig marka dhaliishaas ma idin muuqata inaad leedihiin idinka ka boolis ahaan oo shaqadiina qabsan waayo oo ciddii dacwad loo haystana maxkamad horgeyn waayey ciddii kalena fasaxi waayey hadda u mahadsantahay waa su-aal wanaagsan anigu taliya ahaan 2 jeer baan ogaan karaa stageka cidda ku xiran markaan korbeer ku tago waan sheegareeyo cidda xiran iyo waxay ku xiran yihiin iyo riboortka taliyaha qaybta ii keena waa ii keena taliyaha qaybta riboortka inay xiran yihiin dad noocaas taliya xigeenka liis ka soo sameeyey madaxda iga sarreysaan u geeyey iyagaan u gudbiyey wax tilaabana kama ay qaadeen دارع مقدمة مثل هذه البنك السعودي وحن ربع سؤال كلام كوديو أدي بحية الدين محا هيك إنك تحيي ولا شغال اللي كمان عسين محدين وحا الله مقعاوي لا لينا الله لا دقالك أرجع السر لمقاطعات halka waxaan hadda ka aqrinayay dadka muxuudiin soo qabtay in lagu eedeeyo muqaadaraad iyo argagixisad in lagu eedeeyo dhalinyaro magaalada Faransa ka sameeyay muxuudiin shaqada wahayo ma aha shaqadii loo idmaday waa shaqadii ciidanka booliska qaybta nugaal ay lahayd way shaqada wahayo waxaana waajibaad ku saaran yahay madaxda sare inay kala saarto shaqada booliska iyo shaqada la dagaalanka argagixisada hadda qodobka labaad waxa weeye la dagaalanka argagixisada Puntland muxuudiin ku saaran طبعا ka shaqeeya magaalada Garowe oo kaliya aaway magaalooyinkii kale Garowe waxay ku taallaa xuduntii waddanka muqaadaraadka argagixisada iyo qaraxyadii iyagoo socday waxay tagayaan Boosaaso Garowena soo maray muxuudiin ciidankiisa ku kooban yahay Garowe idinka jawaab kale garaa taliya waa maxamed Blakeed oo ka socda Puntland TV ka qaadista hadda lagu sameeyo ma aqbashay sida waa xilliga ma qaadin waa laga joojiyay shaqada laga joojiyay taliya hadda sida muuqata muxuudiin sida muuqata madaxdii dalka ugu sarreysay madaxweynihii muuqata inuu la safan yahay marka adiga go'aan ka qaadanaysa maxay tahay maadaama uu muuqato ma garanaysa taliya muxuudiin inuu madaxweyne ku-xigeenkii uu ka haysto garabkeeda wallahi muxuudiin waajib u leeyahay waajib baan leeyahay anagoo la waxaan xukumo madaxweynaha muxuudiin waa laan ka mid ah booliis ciidanka booliiska hoos yimaada laakiin waxaa muuqanaysa inuu garab marsan yahay nidaamkii kala dambeynta ahaa ee xukunka waddanka u degsanay taasna saxitaankeeda waxaa iskala madax saaray hadday khaladka saxaana falilahi alxamd hadday sixi waayaan khaladka raacaana ayaga dib ugu soo noqon doontaa oo kale dee waddanku dad baana degan iyagaana u baahan yihiin inay saxaan haddii cid u saxday waayo hadda qorshaha kuu degan muxuu yahay shaqa fariisintan ma sidaasaad ilaa amar damaad